السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا channelkeena aragtida maanta muuqaalkeena maanta waxaan ku sharaxaynaa qaybta labaad ee filmka Baby Day Out kaas oo laga metelay koox tuuga ah kuwaas oo soo afduubtay wiil yar oo ay dhaleen qoys taajiriin ahi fadlan daawade soo daawo qaybta koobaad ee filmka mahadsanid kooxdan tuugada ah oo ka kooban 3 nin ayaa dhibaato fara badan ka maray helitaanka wiilkan yar oo ay soo afduubteen kaas oo baxsaday kadib markii uu seexday ninkii ilaalinayay iyagoo sidii u raadinaya ayaa wiilkii yaraa wuxuu soo gelayaa goob dhismo ka socdo tuugadii ayaa imaanaysa goobtii dhismuhu ka socday waxayna soo fuulayaan wiishka waxayna arkayaan wiilka yar oo kar ka saaran bir wiishka dhismaha saarnayd waxaa ka soo daba fuulaya mid ka mid ah tuugada balse birtii ayaa dhinac u leecaysa tuugii ayaa meesha ka lalmanaya wiilkii yaraa ayaa isna fuulaya wiishka korkiisa tuugii oo si lalmanaya ayaa wuxuu ku qaylinayaa badbaadiya kadib labadii tuug ee kala mid ka mid ah ayaa isku dayaya inuu saaxiibkiis badbaadiyo balse isagiina uu ka daba lalmanaya labadoodiina sidaas ayay meesha uga dhacayaan mid ka mid ah ayaa wuxuu ku duldhacayaa alwaaxyo tiro badan iyadoo meel halis uga dhacaysa kadibna wuxuu isku dayayaa inuu kor u kaco haddana wuu sii siibanayaa isagoo qaylinaya ayaa wuxuu ku dhexdhacayaa han ay ka buuxdo shamita qasani midka kalena wuxuu ku duldhacayaa wiish inta uusan ka dulkicin wiishka ayaa hoos u soconaya wuxuuna fuulayaa gaari gacan yar kadibna wuu la soconayaa wuxuuna ka dhacayaa dabaqa isagoo ku duldhacaya meel qashin yaallo cunugii yaraa ayaa iska sii gurguuranaya wuxuuna ku duldhereerinayaa alwaax tuugii saddexaad ayaa isku dayaya inuu dhanka cunuga yar u dhaqaaqo balse wuu simbirraxoonayaa wuxuuna ku dhacayaa dhulka isagoo si xun u madaxa uga dhacayo dubbe cunugu waa mid mucjiso ah wuu ku qoslayaa isagoo iska sii wadanaya gurguuradkiisa tuugii uu dubaha ama burisku madaxa uga dhacay ayaa waxaa kor looga soo shubayaa rinji wuxuuna isku dayayaa in uu dhaqaaqo balse wuu ku simbirraxoonayaa cunugii yaraa ayaa khatar gelaya wuxuuna ku siganayaa in uu ka dhaco dabaqa isagoo ku duldhacaya wiish birawada oo hoos u socda tuugii waxa uu fuulayaa wiish xariga si uu hoos ugu dego balse nasiib darro shaqada ayaa dhammaanaysa wiishkii ayaana la deminayaa isagoo wiishkii ka laalaada ayay qoraxdan u dhacaysaa booliska ayaa faamiliga cunuga yar u sheegaya in warbixintii ugu dambeysay ee tiifiyada laga baahiyay ay sheegayso in lagu arkay goob magaalada ka mid ah cunugii yaraa ayaa wuxuu soo gelayaa xarun dadka waayeelka ah lagu xanaaneeyo iyagoo aad ugu farxaya cunuga yar ee ugu yimid hoygooda waxayna si farxadi ka muuqato ugu heesayaan sacabkana ugu tumayaan cunuga yar sidaas ayaana dib loogu helayaa intaas kadib booliska ayaa ku wargelinaya qoyska cunuga yar dhalay in la helay wiilkoodii iyagoo u imaanaya kadibna sidaas loogu wareejinayo qoyska cunuga yar dhalay ayaa soo wadanaya wiilkooda iyagoo meel dhexa soo maraya cunugii yaraa ayaa aqoonsanaya gurigii tuugadu ku hayeen oo saacad weyn banaanka ku lahaa booliska ayaana ku tuhmaya in gurigan lagu hayay cunuga yar markii la soo afduubtay waxayna u soo ruqaansanayaan dhanka guriga la tuhunsan yahay 3 nin ee tuugada ahaa oo qaba dhaawacyo fudud dood iyo muranna ku jira ayaa loogu imaanayaa guriga waxaana lagu wargelinayaa in ay isdhiibaan mid ka mid ah tuugada oo gacanta ku haya buug oo cunuga yar lahaa ayaa u soo tuuraya dhanka booliska isagoo caddayn u noqonaya in ay yihiin kuwa faldambiyeedka afduubka ah ka dambeeyay sidaas ayaana lagu qabanayaa walaalaha qaaliga ah waa ku mahadsantihiin daawashadiina muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay fadlan daawade channelka subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo gelino mahadsanid